golaha ay xaqiijiyeen ciidamada dawladda Suuriya sanadkan bilowga ah 2026 inta badan ay kula wareegeen dalka Syria iyo dagaaladii iyo duulaankii ay ku rideen nidaamkii Asad xilliga ay mucaaradku ahaayeen labadooduba waxa qayb weyn ka qaadatay oo taageertay dawladda Turkiga waa maxay sababta iyo ujeedka dawladda Turkiga ay ku aadan inay gacan ka geysato labadani howlgal iyo duulaan muxuu yahay walwalka ay Turkiga ka qabaan Suuriya muxuu yahay ujeedka Turkiga u soo dhisay madaxweynaha xilligan Syria Ahmed al-Shara dawladda Turkiga ayaa u aqoonsan argagixiso dhammaan kooxaha ka soo horjeeda maamulka Syria ee uu hogaamiyay Ahmed al-Shara misana huwan magaca SDF ciidamada dimuqraadiga Syria si la mid ah kooxda PKK maadaama kooxahan gacansar leeyihiin dawladda Mareykanka taageero dhinacyo kala duwan ka helaan haddana dawladda Turkiga ayaa dhammaan kooxahan u arkaa cadow sidaas darteed Turkiga ayaa dadaal badan ku bixinayay qaab kasta ugu hortagi karo awoodda kooxdani oo muddooyinkii dambe aad u xoogaysanayay Turkiga ayaa sidoo kale aaminsan in kooxda SDF oo xiriir kala dhaxeeyo kooxda PKK oo uu horay ugu aqoonsaday urur argagixiso kooxda SDF oo hadda jab xoogan kala kulantay ciidamada dawladda Syria haddana kooxdan SDF oo meesha laga saaro waxay dan u tahay dawladda Turkiga haddana dib kugu celiyo sanadihii aynu ka soo gudubnay ee dhaqdhaqaaqyadii military ee Turkiga ee Syria intii u dhaxaysay sanadihii 2016 iyo 2020 militariga dawladda Turkiga ayaa waxa ay dalka Suuriya ku qaadeen 4 weerar oo kala duwan si gaar ah waqooyiga Syria oo ay maamulayeen kooxda SDF ujeedada weeraradan ayuu xilligaas Turkiga ku sheegay inuu ahaa mid lagu baacsanayo kooxda PKK sidoo kalena ahaa howlgallo lagu xaqiijinayay amniga xuduudda Turkiga uu la wadaago Suuriya si kastaba ahaataba dawladda Turkiga 10 sano ee ugu dambeysay waxay ilgaar ah ku haysay dalka Syria ujeedka ugu weyn Turkigana wuxuu ahaa kooxda abaabulan ee PKK oo uu Turkiga aaminsanaa in SDF mucaaradka Syria oo xiriir wada shaqeyn kala dhaxeeyo sidaas darteed 10 sano ee ugu dambeeyay dawladda Turkiga ayaa qaadatay go'aano dhinacyada faragelineed siyaasadeed iyo military ee Suuriya isagoo Turkiga adeegsanayay xeelado kala duwan dadka wax ka yaqaan dagaalada ayaa aaminsan in dawladda Turkiga si awood badan ugu yeelato Suuriya kana fikiraysa amniga xuduudaha Syria la wadaagan haddana waxa ay sanadihii dambe dadaal badan ku bixinaysay inay hesho koox ay fahmi karto tan oo keentay inay dib u habayso kooxihii mucaaradka Suuriya gaar ahaan kuwa saameynta ku dhex lahaa dalka Syria waxayna u diyaarisay dhinacyada siyaasadda ee dhinacyada military sida khubarada dagaalada wax ka yaqaan qaban qorshan kadib dawladda Turkiga ayaa ku guuleysatay inay dhisto awood iyo dhaqaale geliso maamulka al-Shara ee talada Syria hadda gacanta ku hayo tanina waxay keentay in mucaaradkii uu hogaaminayay Shara ay xukunka ka tuuraan nidaamkii Bashar al-Assad tani ayaana dawladda Turkiga ka dhigtay mid qorshaheedii uu guuleysay maadaama uu meesha ka baxay jahwareerkii siyaasadeed ee gudaha Syria ka jiray Turkiga oo wada qorshayaashiisa Syria haddana waxa uu fursad ujeedkiisa ka hirgelin karo ka dhaxarkay isbedelada dhinacyada kala duwan ee ku yimid nidaamkii Bashar al-Assad sababna uu ahayd in lagu sii xoojiyay cunaqabateyntii maamulkiisa la saray ee ka mid ahaayeen dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda waxayna tani burburisay awoodii nidaamkii Assad isagoo fursadan eeganaya Turkigana wuxuu ku dadaalay inuu dhiso aadna u horumariyo xoogagga mucaaradka ee al-Shara xukunka Syria la wareegay waxa fursad siisay Turkiga maadaama nidaamkii shacabka badan xasuuqay ee Assad uu ku joogay taageerada dawladda Ruushka iyo Iiraan in xiriirkoodii noqday mid isbedel ku yimid sabab la xiriiray in dawladda Iiraan ay wajahaysay dagaalo halka Ruushka uu dagaal uga furnaa dalka Ukraine tan oo keentay inay awoodi waayaan inay ciidan iyo hub ku taageeraan sidii xilligii uu xasuuqayay shacabka laga soo bilaabo sanadkii 2011 ilaa 2015 sanadkii 2011 oo kacdoono xoogan misana hubeysan oo ka qarxay Syria waxay tan u yeeshay dalkan wajiyo kala duwan kadib markii saaxadda dagaalka ee kacdoonada ku wajahnaa nidaamka Assad ku soo biireen saddexda dawladood ee kala ah Turkiga Ruushka iyo Iiraan Ruushka iyo Iiraan waxay la safnaayeen nidaamka Assad halka Turkiga uu taageerayay mucaaradka hubeysan ee nidaamkii Assad balse waxay awood raacday Ruushka iyo Iiraan waxayna xoojiyeen nidaamkii Assad oo xilligaas qarka u sarnaa in la rido iyaga iyo kooxo maleeshiyaad shacab ah ayaana ka mid ah xasuuqa shacab badan oo Syrian ah ilaa inta badan laga cirib tiray deegaanadoodii waxayna geysteen xasuuqii ugu xumaa bariga dhexe iyagoo dilayay oo duqeynaya guryaha shacabka loomana kala soocinin carruur iyo waayeel si kasta ahaataba sanadkan cusub iyo wixii ka dambeeyay bishan January Turkiga ayaa u dabaaldegaya guulaha iyo horumarada ay sameeyeen dawladda ku-meel gaarka ee Suuriya oo uu hogaaminayo madaxweyne Ahmed al-Shara horumaradan oo ah dagaalada ay kaga adkaadeen kooxda SDF ee Suuriya duulaanadan oo sababay in kooxdani lumiso in badan dhulka waqooyiga Suuriya ah oo ay maamulayeen 10 sano ee ugu dambeysay sida aan hordhac ku sheegayba kooxahan ay hogaamiyaan Kurdiyiinta misana ku midaysan magaca SDF ciidamada dimuqraadiga Suuriya dhammaantood la isku geeyay wuxuu Turkiga u aqoonsanaa koox argagixiso dawladda Turkiga ayaana aaminsan in kooxahan ay halis ku yihiin
amniga turkiga sidaas darteedana uu waajib yahay dagaalkooda. ka hor intaysan ciidamada dowladda suuriya weerarin waqooyiga suuriya, dowladda turkiga ayaa ku hanjabtay inay qaadi doonto howlgalo military oo ka dhan ah kooxda SDF ee waqooyiga suuriya haddii aysan u dhaganugulaanin dalabaadka ciidamada dowladda suuriya ee ah inay la midoobaan dowladda. maalinimadii axadda aynu ka soo gudubnay, SDF ayaa waxay heshiis la galeen dowladda suuriya. tanina waxay soo afjartay isbuucyo dagaalo ah. si kasta ay ahaataba, dowladda turkiga ayaa fariin hambalyo oo ku aadan sida ay guulaha militari ugu gaareen dowladda Syria kooxda SDF. si gaar ah madaxweynaha turkiga ayaa hambalyo u diray ciidamada dowladda Syria, wuxuuna yidhi bilowgii horeba turkiga wuxuu si adag u difaacayay sidii suuriya uga hirgeli lahaa hal dowlad, inagoo marar fara badan ku celinay inaan ogolaan doonin aqbalaynin maamulo gooni ugoosad ah oo ka hirgela Syria, taasoo hadday dhacdo khatar ku ah amnigeena xuduudaha, ayuu yidhi Erdogan, madaxweynaha turkiga, xilli uu hambalyo ku aad golahay gaareen u dirayay ciidamada dowladda Suuriya. horumaradan ay sameeyeen ciidamada dowladda Suuriya ayaa ku soo beegmay xilli ay jiraan xiisado u dhexeeya dowladda turkiga iyo Israa'iil, kaasoo ku aadan arrimaha Syria oo midba midka kale uu ujeedo gaar ah ka leeyahay. sababtuna waa Israa'iil oo cabsi ka qabta in turkiga saameyn militari iyo mid siyaasadeed ku yeesho gudaha Syria, tan oo ay u aragto khatar halis ah. Israa'iil waxay ka cabsataa in turkigu yeesho saameyn militari iyo mid siyaasadeed oo xoog leh gudaha Suuriya, taasoo bedeli karta miisaanka awoodda gobolka bariga dhexe. ka hor intaanan la jebinin kooxda SDF, xogo sirdoon ayaa sheegay in xubnooyin ka socday kooxda SDF ay caasimadda Faransa, Bariis, kula kulmeen mas-uuliyiin madax Israa'iili ah. kulankan intuu socday, xubnihii SDF ka socday waxay ka codsadeen mas-uuliyiinta Israa'iil ah inay soo farageliyaan dagaalka iyo duulaanada kaga imaanaya ciidamada dowladda Syria, iyagoo tusaale u soo qaatay siday u taageereen kooxdii Daruusta ee Syria. balse codsiyadan ka yimid xubnahan SDF misana Israa'iil uga codsaday lug ku yeelato soo farageliso dagaalka iyaga iyo dowladda Suuriya, waxa uu noqday mid fashilmay kadib markii Israa'iil ay u sheegtay xubnahan inaysan suuragelaynin in ay soo farageliso arrimaha kala dhexeeya dowladda Syria.